ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa isbitaalka ku booqday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo shalay ku dhaawacmay weerarka argagixisada al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xooggu ay ku leeyihiin degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaal gaara oo leh adeeg caafimaad oo dhammaystiran. dowladda soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran waxauna booqashada ra-iisul wasaare xasan cali khayre qeyb ka tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee daljirayaasha qaranka laguna dhiirigelinayo ciidanka qaranka oo dhan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maamulka isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka nafsad hurayaasha ah ee usoo dhaawacmay ilaalinta badbaadada iyo nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed. askarta ku jira cisbitaalka ee qaba dhaawacyada fudud ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey booqashada dhiirigelinta oo ugu yimid waxayna ballan qaadeen in marka ay bogsoodaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu laaban doonaan farumaha dagaalka si uga qeyb qaataan xoreynta dalka islamarkaana shacabka soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku hayaan. ra-iisul wasaare khayre ayaa ciidamada dhaawacyada qaba u rajeeyey in caafimaad deg dega oo la siiyo waxa uuna askartii ku shahiiday difaaca qaranka soomaaliyeed u rajeeyey in ilaahay u aqbalo shahiidnimadooda jannadii firdowsana uu ka waraabiyo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa saraakiisha ciidanka qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga uga mahad celiyay dadaalada isdabajooga ay ugu jiraan soo afjaridda kooxaha argagixisada al-shabaab ee caadaystay gumaadka ummadda soomaaliyeed si shacabka soomaaliyeed u helaan nabad iyo nolol. nasr bashiir cali, warbaahinta qaranka, muqdisho.